waxaa goordhow bilaaban doono barnaamijkii caanka ahaa ee Soomaalidu u taqaanay Group 5 ka Mareykanka qaybtiisii labaad Phase 2 barnaamijkan oo loo yaqaano Mareykanka Welcome Club. Hadda waxaa gabagaba ah barnaamijka qaybtiisii koowaad oo dhammaan ummada Soomaaliyeed badankood aan ku seenin. qaybta koowaadna ay tahay in dadka la keenayo aysan adiga dooran ee dowladda Mareykanka ee Republican ku dooranayso, balse qaybtiisa labaad goordhow bilaaban doonto insha Allah. waxaad dooranaysaa dadka aad rabtid. meel walba joogtaan qaarta waa salaamantihiin. waa Maxamed Faarax. waxaan rabaa inaan idinla wadaago maadaama qaybtii labaad ee barnaamijka Welcome Club ama Group 5 ka Mareykanka ee bilaaban doonto waxyaalaha laga rabo ama ay tahay mudan tahay inaad isku diyaarisid. qaybta labaad waxaa loogu talagalay inaad keentid dadka aad rabtid ee qaxootiga ah. dadka aad rabtid ee qaxootiga ah ayaad keenaysaa adiga doorataan. dadkan markaad dooratid waa in hay'adda USRAP ee Mareykanka u qaabilsan resettlement programka waa inay ansixisaa ama aqbashaa inaad u dacwoon kartid ama aad keentid. ka hor waxaa laga rabaa hadda inaad isku diyaarisid maadaama bisha lixaad ee hal maalin nooga hartay lana filayo bisha lixaad ka soo socoto inay bilaabato. dhowr qodob oo muhiima qaasatan 5 qodob oo muhiima ayaan rabaa inaan idinla wadaago. 5 qof oo Mareykanka jooga isku magaalo ama isku gobol joogo ayaa la rabaa inaad isku imaadaan. 5tiinaas qof waa inaad ahaan ka weynaataan 18 sano iyo wixii ka weyn. waa inaad ahaataan American citizen ama green card aad haysataan. 5tiinaba hal qof ayaad iska dhex dooranaysaan oo idin hogaamiyo oo contactiga idin qaabilsan. 2 waa inaad background check 5tiina qofba aad wada martaan oo isku diyaarisaan barnaamijka qaybtiisa lama ku furmo background check aad martaan inaad dambi leedihiin soo baaro dowladda Mareykanka soo baaro. calaa qof $15 ayaa laga qaadayaa. hal asbuuc ilaa 2 asbuuc gudahoodna waa idinku soo jawaabayaa. 3 waa inaad 5tiinaas qof hal qof idin ka mid ah uu qaataa free online course. waa inuu class online ka qaataa website-ka welcomeclubs.org inuu galaa. online course waa inuu qaataa oo free ah. 2 saac ilaa 5 saac ayaa ku kacaysaa. waa dheeryahay kalaasyaasha. muhiimkana waxaa weeye course-kaas aad qaadanaysid in aad ogaatid dadka aad caawinaysid, mas-uuliyadda kaa saaran, qaabka aad u caawinaysaan, waxyaalaha laydinka rabo 5tiinaan qof qaabka aad usoo dhaweynaysaan ilaa 90 beri aad heenaysaan mas-uuliyadda idin saaran tahay, qaabka aad u caawinaysaan markaa keentid. saas ayaa laydinka rabaa. shahaado ayaa laga rabaa qofka markuu kalaaska dhammeeyo. email ayaana loogu soo dirayaa. shahaadadaas waa muhiim inuusan dhumin. applicationka markuu furmo ayuu upload garanayaa oo ku upload garanaya kuna la dirayaa. 4 5tiina qof waa inaad budget hadda samaysataan. waa inaad isku diyaarisaan inaad budget leedihiin. calaa qof qaxooti aad keenaysaan waa $2,375. calaa qof waa $2,375. inta qof aad rabtaan aad keeni kartaan oo family size ka ah ama hal qof aad ama family size intuu badan yahayba. 5 waa inaad qortaan ama aad qorsheynaysaan inaad qortaan welcome plan, qorshe aad ku soo dhaweynaysaan dadkaas. hadda phase 1 ka furan welcome plankiisa markaan fiiriyay wuxuu ka kooban yahay ilaa 20 page. waa qaabka dadka lagu soo dhaweynayo, qaabka loola macaamilayo, qaabka aad u caawinaysaan, iskuulada carruurtooda aad geenaysaan, cuntada aad u garaysaan, guriga aad u garaysaan, alaabta aad guriga dhigaysaan, u kareenaysaan iyo waxyaalahaas. marka welcome planka laydinka rabi doono phase 2ga waa in aad diyaarisaan ama hadda aad ka sii fikirtaan. 5tan qodob waa inaad hadda sii diyaarsataan aadna isla hadashaan 5tiinaan qof oo isku tagtaan. laakiin 5tan qorshe hal midoo ka mid ah waa in hadda aad ku dhaqaaqdaan. waa in qofkiin idin ka mid ah intuu barnaamijka phase 2 furmin uu qaataa classka online-ka, shahaadadana uu sii qaataa. 4ta kalena markuu barnaamijka furmo waxaa laga yaabaa in shuruudo uu la furmi doono, waxyaala phase 1kan applicationadiisa iyo qaabkiisa wax ka bedelaan. laakiin waa muhiim inaad isku diyaarisaan. hal qof oo idin ka midana waa hadda shahaadada sii qaato. gunaanadkii phase 2ga waxaa laga yaabaa in wax laga bedelo. markaad gashid website-ka Welcome Clubs qaybtiisa informationka waxaa ku qoran sanadka dhexdiisa ayaan idinla wadaagaynaa markaan application ku furno
shuruudaha ku xeeran ama ku gooban barnaamijka phase 2giisa. marka wixii markii la furo waa idinla soo wadaagi doonaa qaabka phase 2ga applicationkana waa idinla soo wadaagi doonaa qaabka loo buuxinayo. laakiin isdiyaariya idinkoo 5 qof ah, isku diyaarina dadkiina aad keensataan oo qaxooti ah. hay'adda raabna ee USRAP-na haddii ansixiso dadkiina waa laidin keenayaa muddo 3 bilood ilaa 2 bilood gudaheeda ayuuna lagu keenaya. waxaa la filayaa haddii la process garayso sida badan in sanadkan gudihiisaba dadkiina qaxootiga joogo oo aad rabtaa inaad keentaan in la idin keeno. waa maxamed faaraxo videoga idinla wadaagayay. la wadaaga videogan dhammaan asxaabtiina social media, iskuna diyaariya dadka Mareykanka joogo rabada dadkooda inay keenaan ama caawiyaan barnaamijka inay ka qayb qaataan qaybtiisii labaad phase 2ga markii goor dhow la furo. anna waa idinla soo soconsiin doonaa insha Allah markii la furo. dhammaantiin waa mahadsantihiin.